Simple future tense. Tenska saddexaad. What is simple future tense? Waa maxay simple future tense? Simple future tense is used for an action. Simple future tense waxaa loo isticmaalaa ficil kaasoo will happen dhici doono in the future mustaqbalka. Tensigan waxaa loo isticmaalaa wax aan weli dhicin laakiin dhici doono mustaqbalka. Future waa mustaqbal. Tensin waa tensiga future mustaqbal. Give ka bixi an example tusaalo an formula iyo qaacido. Subject plus will slash shall plus verb plus object. Waa formuliisa qaacidadiisa. I aniga, we anaga, waxay qaataan shall, labadan waxay isla qaataan shall. You adiga mise adinka, they iyaga, she ayada, he asaga, it ayada mise asiga xayawaana, waxay qaataan will. Meeshan waxaa nooga qoran tusaalooyin badan, mid walba wuxuu ku shaqeeya iyo qaabka jumladihiisa loo sameeyo. Positive sentences waa jumlada positive ah. I shall come tomorrow. Waan imaan doonaa berri. I shall come tomorrow. Waan imaan doonaa berri. We shall meet tomorrow. Waan kulmi doonaa berri. Miwa anaga. We shall meet tomorrow. Anaga waa kulmi doonaa berri. You will travel to abroad. Adi waxaad u safri doontaa dibadda. You will travel to abroad. Adi waxaad u safri doontaa dibadda. They will visit us. Iyaga wayna soo booqan doonaan. They will visit us. Iyaga wayna soo booqan doonaan anaga. She will attend a party. Iyada waxay ka qaybgali doontaa xaflad. She will attend a party. Iyada waxay ka qaybgali doontaa xaflad. He will buy a new mobile. Isaga waxaa soo iibsan doonaa mobile cusub. He will buy a new mobile. Isaga waxaa soo iibsan doonaa mobile cusub. It will come to the farm. Iyada waxay imaan doontaa beerta. It will come to the farm. Iyada waxay imaan doontaa beerta. Id waxaa loo adeegsadaa xayawaanka iyo wixii la mida ama wixii aan nooleen. Questionis su'aalo. Su'aal marka laga dhigaya soo hormari mid walba waxa uu qaato. Shall I come tomorrow? Ma imaan doonaa berri. Shall I come tomorrow? Aniga ma imaan doonaa berri. Shall we meet tomorrow? Annaga ma kulmi doonaa berri. Shall we meet tomorrow? Annaga ma kulmi doonaa berri. Will you travel to abroad? Adiga ma u safri doontaa dibadda. Will you travel to abroad? Adiga ma u safri doontaa dibadda. Will they visit us? Iyaga ma na soo booqan doonaan. Will they visit us? Iyaga ma na soo booqan doonaan. Will she attend a party? Iyada ma ka qaybgali doontaa xafladda. Will she attend a party? Iyada ma ka qaybgali doontaa xaflad. Will he buy a new mobile? Isaga ma soo iibsan doonyaa mobile cusub. Will he buy a new mobile? Isaga ma soo iibsan doonyaa mobile cusub. Will it come to the farm? Iyada ma imaan doontaa beerta. Will it come to the farm? Iyada ma imaan doontaa beerta. Negative questionis su'aalo diidma ah. Shanti I come tomorrow. Aniga ma imaan doona miyay berri. Shanti I come tomorrow. Aniga ma imaan doona miyay berri. Shan't we meet tomorrow? Annaga ma kulmi doona miyay berri. Shan't we meet? Annaga ma kulmi doona miyaa tomorrow berri. Won't you travel to abroad? Adiga ma u safri doontid miyaa dibadda. Won't you travel to abroad? Adiga ma u safri doontid miyaa dibadda. Won't they visit us? Iyaga ma na soo booqan doonaan miyaa. Won't they visit us? Iyaga ma na soo booqan doonaan miyaa anaga. Won't she attend a party?
iyada ma ka qaybgeli doonta miyaa xaflad? Won't she attend a party? iyada ma ka qaybgeli doonta miyaa xaflad? Won't he buy a new mobile? isaga ma soo iibsan doonyo miyaa mobile cusub? Won't he buy a new mobile? isaga ma soo iibsan doonyo miyaa mobile cusub? Won't it come to the farm? iyada ma imaan doonta miyaa beerta? Won't it come to the farm? iyada ma imaan doonta miyaa beerta? id waxaa la adeegsadaa xayawaanada iyo wixii aan noolayn ma noolaa iyo xayawaanada. Negative sentences jumlado diidma ah. Negative waa diidmo. Ama waad dhihi kartaa negative answers jawaabo diidma ah. I shall not come tomorrow. aniga ma imaan doono biri. We shall not meet tomorrow. annaga ma kulmi doono biri. You will not travel to abroad. adiga ma u safri doontid dibadda. They will not visit us. iyaga ma na soo boqon doonaano annaga. She will not attend a party. iyada ma ka qaybgeli doonto xaflad. He will not buy. asiga ma soo iibsan dooyo a new mobile cusub. It will not come to the farm. iyada ma imaan doonto beerta. casharkeena wuxuu ku eg yahay meeshaan. la soco tensiyaasha. haddii aadan fahmin tensigan mar labaad ku soo cesho. waad ku mahadsan tahay daawashada bilow ilaa dhammaad.